wasaaruhu wuxuu waqti la qaatay shaqaalaha kala duwan ee xafiiska ra'iisul wasaaraha isagoo kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka wasiir dowlaha shaqaalaha kala duwan iyo waaxaha kala duwan xafiiska xafiiska bii'ada iyo deegaanka waxaa runtii ra'iisul wasaaraha uu muujiyay in shaqo wanaagu ay ku qotonto ilaalinta waqtiga iyo isla markaana joogteynta dadaalka xafiis walba ka socda sidoo kale ra'iisul wuxuu ballan qaaday in shaqo kasta oo socota meesheeda laga sii wadi doono shaqaaluhuna ay kalsooni buuxda ku shaqeeyaan sidii shalaba uu ku cadeeyay khudbadiisii xil wareejinta sidoo kale wuxuu ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday in si joogto ah warbixinada loo kala qaadan doono heerarka kala duwan ee dowladda oo xafiiska ra'iisul wasaaruhu hormuud ka yahay hirgelinta aragtida iyo barnaamijka ay ku shaqeynayso xukuumaddan wuxuuna runtii kalsooni 100% geliyay shaqaalaha inay si howlkarnimo leh oo hufnaan leh oo daacadnimo ku leh hawshooda u gutaan waxaan rajaynaynaa insha Allah ra'iisul wasaaruhu inuu wada tashiyo kala duwan sameeyo maalmaha soo socdo dhismaha xukuumadda ku aadan dardargelinta howlaha dowladda insha Allah wuxuu la kulmi doonaa qof kasta oo muhiim u ah dowladda Soomaaliya haday heerar kala duwan joogaan haday agaasimayaal guud yihiin haday yihiin wasiirada hadda xilgaarsiinta haday ahaan lahaayeen hay'adaha madaxa bannaan gudiyada madaxa bannaan taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo dhammaan cid kasta oo howl muhiim u haysa qaranka si loo daadajiyo awoodda isla markaana ra'iisul wasaaruhu u helo warbixin maalinle ah howlaha qaranka ka socda